بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود waxaad nagala socotaan waa Gorgata TV barnaamijka waxa ila idinla socodsiinaya anigoo Axmed Cali Huday barnaamijka waxa caawa gala qayb qaadanaya Diini Cumar oo jooga Ankara dalkaas Turkiga oo ah reer UK barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa haddii Allah awood leh ogolaado dhibaatooyinka ka dhashay ama khilaafyada ka soo ifbaxay dib u dhiska Hirshabeelle maxaad kala socotaa wax badan ka ogow hadda la socoto Gorgata TV haddadan la soconna follow haddii kale subscribe haddii ilaahay idmo si aad u hesho barnaamijyada waxaan haddaba sidii caadada noo ahayd ku furan doonaa geed ka baxay godin ku taal geel la jira iyo Cabdalle Yuusuf Kaduniye waayahay daawadayaal waxaad nagala socoteen waa Gorgata TV halkaasna waxaa noogu dhamaaday clipkii yaraa ee furitaanka ahaa waxaan ka hadlaynaa arrimaha Hirshabeelle haddii Allah awood leh ogolaado oo maalmaha khilaafyo badan ka soo ifbaxayeen haddaba fadlan la wadaag asxaabta oo barnaamijka noo baahay barnaamijka sidaan hore idinku sheegay Diini Cumar ayaa marti noogu caawa oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda goboladaas haddana ku sugan Ankara oo reer UK sidoo kale soo dhawaaw Diini waa mahadsantahay brother Gorgata TV aad baan kugu mahadcelinayaa waayahay Diini sidaad la socoto markii hore waxaa laga soo maray dhibaato badan dhisitaanka Hirshabeelle khilaaf badan haddana waxaad moodaa khilaafkii inuu dib u soo laabtay asagoo weliba intii ka baaxad weyn oo ka laamo badan amaba sii ballaartayba maxaa sababaya ayaad silaada arrintaas war horta waa good question waaye aad baa u mahadsantahay waa su'aal fiican horta annaga waxaan wax ku nahay waa dadkeena ummadda Soomaaliyeed especially waxaan ka soo jeednaa Koonfur maalintii uu qarax ka dhaco Koonfur anywhere waxaan isweydiinaa dadkaaga maxaa ku caawin kartaa marka aniga shakhsi ahaan siyaasi maahi nin Middlesex University ka soo baxay product design bartaan ahay laakiin waajib isaaran waxa ah in ummaddeeda wax aan aqaan aan ugu faa'iideeyo marka Hirshabeelle backgroundkeeda wax yar haddaan gadaal u noqono backgroundkeeda waxa waaye wax lagu dhisay dhoodhoob iyo quick madaxweyne xasan sheekh xilligiisii marka
muhiimadda marka waxaa waaye dadka meesha wada degani sidee ku wada noolaan karaan nabad loo heli karaa horumar loo samayn karaa iyadoo aanan qofna lagu xadgudbin marka hirshabelle hadda waxa ka taagan marka dowladda farmaajo iyo advisorkiisa iyo tiimkiisa iyo qof haddii mar uu noqdo public figure magaciisa waa la sheegi karaa sida Fahad Yaasiin oo kale farmaajo oo kale iyaga oo macnaha doonayo in ay soo noqdaan xukunka ku soo noqdaan marka they will do anything they can do to get power back basically no question about that waxay isku dayayaan inay dadka isku diraan waxay isku dayayaan inay dadka kala jijibiyaan inay lacag isticmaalaan inay siyaasad isticmaalaan in house arrest ay isticmaalaan inay dhahaan you cannot even fly dadka qaar ay ku sameeyeen sida madaxweyne xasan sheekh oo kale ama sheekh shariif oo kale waxaasoo dhan marka waxaa la fiiriyaa qofka behaviorkiisa stepsku isticmaalayo how did he get here waan naqaanaa sida koonfur galbeed lagu dhisay waa ognahay waxaan ognahay sida lagu dhisay galmudug haddana waxay taagan waa hirshabelle batanka marka ama stepska isticmaalayaan ama technique isticmaalayaan waa same wax isbedela ma jiro macnaha qofkay rabaan inay meesha geeyaan rabaan si ay cod uga helaan taasi marka waxay leedahay jidad badan ay ku iman karaan iyagoo hadda dagaalka sida dadku u arkaan in macnaha loo diidaya madaxweyne xawaadle laakiin baashu way ka weyntahay dagaalka aniga saan u arko wuxuu ku wajahan yahay walaalayn abgaal because haddii hirshabelle la siiyo madaxweyne abgaal gobolkii ay hayaan dan markii cod la yimaado marka su'aalo badan buu dadka isweydiinayaa haddana kana ma ku darsanaysaa madaxweynihii qaranka ma fahante marka waa technique siyaasadeed oo wadamada qaar ay isticmaalaan xataa waxaa jirto waxyaaba dadka qaar xataa uu joogo gobolka ama hirshabelle ama xamar oo kale waxay ku sameeyaan waa lagu soo wacaa threatsa lagu sameeyana waxaa lagu leeyahay media ma la hadli kartid you do as we told you waxaan annaga ogeyn ma samayn kartid waa qofkii xataa cabsiya la gelinaa si uusan waxba u samayn marka waxay isticmaalayaan cabsi ay dadka ka cabsiinayaan waxay isticmaalayaan lacag waxay isticmaalayaan manipulation ama qofka in la qayaano oo loo ballan qaado wasiir baa noqon doontaa gudoomiye baarlamaan baa noqon doontaa xildhibaan baa noqon doontaa hadhowdiina waa wax ka jira male marka hirshabelle waxa ka jira hadda waxa waaye problem ay abuureen farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyagoo raba inay power ku soo noqdaan waayahay waxa muuqatay hiiraan markii laga hadlayo beesha dhexe ama aan dhaho beesha xawaadle beesha dhexe badana waxaan ka baranay Somaliland oo beesha ugu ballaaranaa meeshaas waxa ka soo yeeraya qaylo badan oo ku aadan kursigaas iyo in hadda aan la doonayn inay ku soo noqdaan maxay ku salaysan tahay cabashadaas ayaad is leedahay la xiriirta madaxweynaha okay meeshan markii la dhisay waxaa lagu heshiiyey laba qodob waa laba gobol oo isku tegay waa hiiraan iyo shabeellada dhexe qolana waxay qaadatay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka qolana waxay qaadatay caasimadda iyo madaxweyne ku-xigeen soomaa marka haddii aad tirahdid meeshan madaxweynihiina waa wuxuu ka imaanaa shabeellada dhexe caasimaddiina waa jowhar anaa ku maamulaayo anaa ku xukumaayo waxaan dhahaa maqal it's not going to be possible wax macquula maaha mid shaqaynaysana maaha waa laga yaabaa waqti yar inay u shaqayso iyagoo lacag iyo manipulation iyo isticmaalayo laakiin aniga waxaan u jeeda waxay tahay macquul ma noqonayso horta midaan ugu mahad celinaa nimankan waxaan ugu mahad celinaa hawyihii jiifay soo kiciyeen hadda oo waxayna tuseen technique isticmaalayaan markii aa aragto qof marka hore waa ignore garaynaysaa laakiin marka problemkooda continue oo noqdo dad hurday ayay soo kiciyeen waxay yidhaahdeen kaale ee shaqaysta marka hadda waa soo kacnay annaga shaqaan diyaar u nahay inaan la challenge garayno in wixii awooddeena aan qabanno laakiin tani waa dagaal muhurto
sida ay rabaan haddii ay ku qasbaan dadka waa dagaal muhurto 91kii aan dib ugu noqonaynaa waayahay sida aan kala socon idaacadaha cabasho weyn ayaa beesha dhexe ee hiiraan waayahay caaqil soo dhawaaw inaad nagu soo waa dhawaay marka soo dhawaaw barnaamijka horaan u guda galnay dabcan waxaan kugu celin doonaa haddii ilaahay su-aalihii ku dhaafay waayahan waxaa soo ifbaxay caqabado ka taagnaa dhismaha hirshabeelle cabashooyin badan ayaa jiray maxaad is leedaha way sababeen arrintaas maxaase maadaama wax lagu heshiiyey in wixii lagu heshiiyey la bedelo maxaa keeno sabab ah soo caaqil ku waxaan filayaa inaad joogto soo dhawo xamar waa fiicannahay alxamdulilaahi barnaamijku waa iga horreeyey wax yarna inaan helo waay xoogaa ableyd inaan helo waay marka waa ka xumaa inta soo daacdo dalna waa ka xumaa intaan haddaadna maqlaysid khilaafaada ka jira dib u dhiska hirshabeelle in maaragtay maamulkii lasoo xulo dabcan doorasho ma jirto waa xulitaan madaxweynihii baa laysku haystaa aragtidaada ku aadan arrintaas khilaafkaas ku dhow aragtidaas ku aadan hadda soomaaliya dhibaatada taallo waa ka warqabtiin hirshabeellena culaab ayaa ku socoto oo ah in danta laga gaaro annaga dadka wax garto waxay qabeen inay sameeyaan dib in loo dhigo oo markii doorashadan dhammaato kadib la qabto wixii hirshabeelle ku saabsan laakiinse nimanka uu hogaaminayo farmaajo ayaa dad dabada ka riixaya ayaa wado oo degdegayo oo arrintana isleh ama jaanis ku heshiin dadkii islahaa oo wax isku darsadayna xoogaa mugdi kala geliyey ayagoo danaha ay ka helayaan ka fiirsanayo marka annaga inta wax garato mar walba waxay ku talinaysaa in xaaladda laga warsugo waxyaalaha socdana ayna xilli munaasaba loo baahan yahay soomaaliyana xilligan dhibaato loo horseedin hirshabeelle loo horseedin doorashada hirshabeellena la galo doorashada kadib oo dowladda federaalka kadib in la galo xaaladoo fadhisana markaasi la asiibo dadna way diidan yihiin oo waxay leeyihin waa in hadda la galaa ayagoo danaha ay ka leeyihiin aan ognahay waayahay waxaa jirta in wax lagu heshiiyey hirshabeelle haddana isbeddela ku socda sida aad kuray isbeddelkaas ma mid aad leedahay wuxuu ka socdaa filla soomaaliya mase waa mid beelaha dhexdooda ka jira soo dhow bismillahi raxmaan raxiim maadaama aa og tahay xaaladda waxa ay tahay isbeddelka wuxuu ka socdaa filla soomaaliya ayaga oo raba dadka walaalaha ah ee meesha deegaanka ku ah inay dhibaato iyo fidno ay dhexgeliyaan ayaga oo maslaxadooda ka arkay inay saas wax ku heli karaan marnabane qoomkan shiray kuma shiraanba maslaxadda caamka ee soomaali waxay ku shiraan maslaxadooda qaaska ah dadkii waxay ku heshiiyeen waa heshiis dad isla weeye wixii lagu heshiiyey xilliga laga bixi lahaa hadda lama joogo waqtiga wuu dhiman yahay waxaan leenahay annaga oo raadinayno maslaxad caam ah dadka ehelka oo walaalka ah oo isla degan meesha inay ayagoo wada qanacsan wax la qabtaa oo wax la afduubin wixii lagu heshiiyeyna la raacaa waa nagu filan tahay waynana deeqdaa waayahay qadkaan ku jirnaa barnaamijkii toosaan ku jirnaa haddaad soo geli karto adduunyakaanahay hadda waayahay waan ka cudur daaranaynaa in qad dhexda naga soo galay waayahay dini muqdishoa nala ku dhibaa waxaa nala ku dhibaa galmudug waxaa nala ku dhibaa hirshabeelle cabashada noocaasa oo afar iyo labaatan saac taagan maxay macnahay samaynaysaa soo macnaheedu ma ahayn dadkan inay aayahooda ka tashadaan oo waxa maslaxad ayaga u ah ama ayagu dani ugu jirto inay qabsadaan in wax dhibka taagan mar walba dad kale lagu eedeeyo maxay soo kordhinaysaa
وسؤال مهم هرت مدة كوات كلا ديبا واكوما سؤال شو تا وبانينا كجواب نواتا دad kala dhiba okay boosaasa ma qaxdo kismaayo ma qaxdo bam al-shabaab ma joogaan wax ma la dhigo dad laguma dilo way annaga naloo dhibayaa hiiraan magaalo ma gudbi kartid jowhar iyo xamar ma imaan kartid baawar ma ku imaan kartid balcad iyo jowhar ma gudbi kartid marka ma aadi kartid marka waxaa isweydiinaysaa hawiyaha maxaa naga qaldan marka saa u jeeda aniga ama sida ii muuqato waxay tahay dadkeenii waxgaradka ahaa ee dadnimada lahaa ee aqoonta lahaa ee dadkan wax ka bedeli lahaa weli siyaasadda sooma gelin midda koowaad ee ummaddan badbaadi lahaa boosaasa dadkeediyaa dhistay kismaayana hadda dadkeediyaa dhisan rabo because farmaajo wax waa ka qaadi waaye wuxuu ku warwareeganaa baydhabo hirshabeelle galmudug meelahan uu ku warwareeganaya because annagaa la jilcanaanay realityga laakiin waxay tahay waa inaan u istaagnaa isbadbaadinaa dadkeena wax u qabanaa okay dagaalku waa noocyo badan yahay qofka markuu baahan yahayna waa dulman yahay sidiisaba annaga ummaddeena way baahan tahay tiya ayaa naloo isticmaalayaa ummaddeena waxay u baahan tahay dhaqaale waxaad ummadu leedahay badanaa loo arkaa dadka soomaaliya u taajirsan inay yihiin dadka koonfurta soomaaliya kasoo jooga laakiin waxaad moodaa inay caqliga ka baahan oo ugu soo noqon doona waayahay caaqil sida aad la socoto waxaa jira in hadda ay isbeddel la socdaan doorashadii waa la gelayaa waxaana muuqata in la doonayo in meesha waa xilka laga qaado maxaa ka dhalan kara arrintaas haddii ay dhacdo mase jirtaa balaan aad ku leedahay arrintaas looga hortagay بسم الله الرحمن الرحيم horta niyahow saa wax u sheeg dadka uu ka baxan u malaynaya ha kuma maqalno waa sida aad u sheegtay waaye sida horjirta beesha xawaadlo maahan dadka reer hirshabeelle isku horkooyinkooda ayaa laga shaqaynayaa cid kasto oo wax garato oo beelaha ku heshiiya hirshabeelle ka midane waxa hadda socdo qof maskax saliim ah raalli kama aha marxaladda laga dan leeyahayna cid kasta oo soomaaliyeed qaasatan dadka reer hirshabeelle annagoona qof ku eedeynin ma ahan inaan annaga horta isyaasano oo dhahno maalin walbo waxbaana laga dheelaa waxbaa naloo dheelaa war annaga dowladda soomaaliya etoobiya kama ilaalino kenya kama ilaalino qatar kama ilaalino masar kama ilaalino maslaxadeenna annaga caamka ah horta maxaa maslaxadda soomaali nooga dhumiyo horta caqligeenna ha soo noqdo inaan horta dadkeenna iyo dalkeenna iyo degaankeenna aan wax ka dhiganno markaas ummadda soomaaliyeed aan wax meel ula imaan allahna gaarsiiyo laakiin ma ahan mar walba in noola soo dooro qofka xun annaga in noola soo dooro qofka xun ayada oo lacag la adeegsanayo waxaa ka caqli fiican inaan maskaxda iyo caqliga aan shaqaysiino aanan samayno in dadka walaalaha laiska horkeenayo oo dhaqaalaha meesha ka imaanaya aan dhaqaale iskaga horkeenayo shakhsiyaadka lacagta dhiibaya aan ognahay dadka loo geynaya aan naqaano inaan marka aan dadku eedno waa laga fiican yahay dadka waxaa inaan isku xiranno oo waxaa wanaagsan biyo intaan soo gaaro iska moosno hirshabeelle duulaana lagu yahay dadka walaalaha ahaa la iska horgeeyaa la rabaa beesha xawaalle inay madaxweyne qaadato wax lagu heshiiyo waaye waa xilligeeda allahna gaarsiiyo in maanta marmarsiyo looga dhigo taytal ku qoran tahay ma jirta iyo warqadaadii aaway iyo dastuurka hirshabeelle kuma qorna iyo qof walbo hirshabeelle dega way ka mas-uul tahay iyo micnaheeda wixii ka dambeeya waa arrin fila soomaaliya laga soo raray oo loo raray meeshan oo weliba la fiiriyey in lagu xisaabtami karo ninka la yidhahda cali guudlaaw xilkaasi lagu salimo loo dhiibo asigana madaxweynaha hirshabeelle oo gacan ku rimis laga dhigo sida baarlamaanka soo baxay loo helo ayadoo oon laga fikiraynin mustaqbalka dambe ee hirshabeelle oo laga fikiraya keliya xalka kuraasta hirshabeelle laga heli karo
aad iyo aad waa yahay engineer Koblow ama Cornel Koblow ayaa dib looga soo biiray sidaad u aragtaa aragtida ah ku jir wax yar ku jir lahaw sidaad u aragtaa aragtida ah in xilka laga qaado waxba lagu heshiiyay Hirshabelle markii la dhisayay in xilka laga qaado beesha xawaadle oo hadda maaragtay heshiisna waxaanu ay ahayn wax heshiis lagu galay aragtidaada arrintaas ku aadan waa maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم هرت marka hore waxaan u maleynayaa codkayga in la maqlaayo oo jeclaan lahaa inaad iga jawaabto okay waa mahadsan tahay marka xiga Axmed Cali Huday waa mahadsan tahay walaalaha meesha ku jirana waxaan leeyahay sidoo kale idinkuna waa mahadsantihiin jaaniskan aad isiisay anigana waan kaaga mahadcelinayaa intaas markaan ka soo tago Axmed Abow waxa weeye horta doodu meesha ay ka bilaabanayso ma ahan yaa Hirshabelle iska leh iyo madaxweyne noqonaya iyo noqonayn waxa ka horeeya oo la rabaa in la aado dhaqankii Soomaalida ee suubanaa saliimka ahaa ee loo yaqaanay gacmihii dhaqan baa wax dhaqa markaan saas leeyahay waxaan u wadaa waxa weeye waxaa noo yimiday 2017 farmaajo oo noo sheegay wax aad u qurux badan oo aad iyo aad loo riyaaqo oo afka qalaad lagu dhaho felt in love jacayl aan kala dul dhacnay oo Allahu akbar farmaajo ii geeya Allahu akbar waxaa soo baxday within days iyo bilo kadib wax luqad ka duwan iyo irdho iyo indhaha gadaal loo taago day by day was shrinking waa sii quusaynay waxaan aragnay within a year wax loo yaqaan isku qataarid golo la isku qataarayo wasaaradda wasiirkeedii iyo agaasimaheeda guud la isku qataarayo hal la isku qataara maxume waa la sheegan jiray awal ee aan la sheegan karin waxa soo baxay at the end of the day wax kasto inay siyaasadeeyaan maadaama ay fashilmeen wax qaban waayeen ila Soomaaliya ayada oo dhanba waa sanadka iyo barka iyo labada sano u horeyso qofka la doorto waxa ka dambeeya waa doorasho la aadaa mar waxa aaday Hirshabelle mar waxa aaday Galmudug mar waxa aaday Balmudug mar waxa aaday Cali Mudug mar waxa aaday Jubbaland mar waxa aaday Hawland Soomaaliya ayadoo dhanba waxa la dhahay state of elections the last 3 years ama laba sano iyo barka u dambeeyo waa iska competition iyo election la aadaya maxaan dhaxalnay marka waxaan dhaxalnay marka dawlad sanadkii u horeysay social media wax ku xukuntay FM kaas waa la damiyay FM waxa la daaro dhaho fake nationalism markii ugu horeysay waa la jiiday waa la damiyay waxa la daaray FM la yiraahdo isla xisaabtan waa la damiyay waxa la daaray aakhirkii waxa naloo keenay qabriga Maxamed Siyaad Barre oo laga duleeyahay la'aantii Soomaaliya ma jirin iyo Soomaaliya waxa habaara ninkan haloo duceeyo waxa la rabaa waaqiciga inaan abaarno waxaan imaanaynaa Hirshabelle iyo maanta intaan Hirshabelle aadin local elections ayaa ciidamo shisheeye loo isticmaalay Soomaaliya baydhabo ka dhacday tangiyaashii Abyssinia oo dadkii si safmareen ah u rasaasaynayo laynaayo hadda waa ogow digil iyo mirifle is dooranaya ayaa Abyssinia loo yeertay waxaa ku xigay Jubbaland sifo walba ha ahaato ama hawiyaha ku qado ama ha ku yaraato ama daaroodan ku beernayn ha lagu abuuro oo isugu habar wacdo waxaan aragnaa ayadoo commandos leedahay Abyssinia loo rarayo oo airportkii Kismaayo carro lagu shubayo oo cagafyo la dhigayo oo leeyahay carwa ka soo daga yur ay leedahay waxaan aragnaa Galmudug oo day by day heshiis ka abuur badan inta lala galo A+B C lagu dilayo C+E D lagu dilayo maantana aan hubno wax ka imaan doona iyo falxumada ay ku dambeyn doonto today iyo Hirshabelle marka Hirshabelle waxay ka mid yahay qabaa'ilada ugu badan ee laga dooranayo Soomaalida qabaa'iladeeda Hirshabelle ninka walaalka meeshaan ka tagay doodiis wax badan ku raacsanahay waa dad walaal ah oo ehel ah oo isla dhashay oo wiili abtigiisa oo wada I can call it Hirshabelle waa golo mudlood hawaadle waa mudlood sii wad soo wad wuxuun dhabe sii wad soo wad waa mudlood dad wada dhashay oo weel ah ayaa Hirshabelle jooga policyga loo isticmaalayo marka waxa la yiraahdaa isku qataarid policy la dhaxal abuura waxa soo dhan marka villa Soomaaliya waxay uga gol leedahay
in aanay ayadu marnaba la arkin ama loo jeedin one example qabaa'ilada ka mid a hirshabeelle muduloodan ka soo qaadaa liis qorana la qaaday midka imaamka la yidhaha midka ugaaska la yidhaha midka la yidhaahdo what do you call ishag islowga midka la yidhaahdo imaam igaas islow whatever liis closed list oo bashqad ku xiran ayaa la qaaday oo ah dad la nominate gareeyey mar hore maxaa ka ratibmaya marka hirshabeelle waxaa ka ratibmaya waxa la yidhaahdo corporate mudulood koox mudulooda oo 40 qofooda oo keligood inay noolaato rabto oo dadkaas kale oo dhan inay u gumeeyaan farmaajo rabaan they don't care haddii shalay la dhihi jira warloorada ilmahooda u beeca kuwa ka daranaa maanta soo baxay kuwa ka halis badanaa soo baxay kuwa ka khatar badanaa soo baxay waa agaasimayaal waa raakiil waa yacni maanta waxaa la ugaarsanaa nin shaqaalo dowladeed ah xafiisyada beenta ah ee xisbiyada lagu sheegay mid inta taga koobshaa kasoo cabi kara male shaxaad uma doonan karo waa la profile gareeyey dadka waa la ayagoo dhanba liisaa la geliyey waa la handaday waa la dabagalay adeerow marka gacmihii dhaqanaa wax dhaqee niman ayagiiba qaar xilka laga qaaday mudulood jihaadu ku baaqayaa ma dheera hadda wallaahi oo bilaahi oo tallaa hadalkagaas gadaal shay cidaa weydiinaya male jihaad ayuu ugu yeerayaa soomaali waa nala qabsaday waa nala haystaa waxaan haysta farmaajo maaha waxaan haysta corporate calow shaqaysta xawaadle calow shaqaysta abgaal calow shaqaysta midka aan ka dhasha ah calow shaqaysta midka adiga aa ka dhalata ah koox tuugaa oo keligood inay noolaadaan rabaan oo hadda qaarkood afkii nabarre oga soo baxay oo qaarkood calooshii nabarre oga soo baxay ilaa xaaraan lagama dhergo lagama bulaalo weligiis waa bahnaana 30 sano ku dhowaad ayay meesha joogeen hal waddo ay dhiseen iska dhaafe beledweyne airbortka markaa ka soo baxdo ee magaalada aad soo aadayso calooshaa ku xanuunayso waayahay aad iyo aadan u ceelgaal iyo beledweyne waxaa loo maraa sida adiga oo u safraaya birmingham oo kale ayaa u safraysaa waa UK markaan ka hadlaya London to Birmingham walaalow marka dadku picturekan ay fiirinayaan ee hirshabeelle ee la yidhahdo madaxweyne xawaadlaale iyo xawaadla malaayad quraan maaha muduloodaale iyo mudulood soo u yeelanaa caasimadii haystaa walaalow wax ka weynaa meeshaan yaalo walaalow degaan walbo waa laysku qataaraa project yaa loo geynaa projectkaasaa lagu apply garaynaa it's up to them say uga dhiidhiyaan say uga hor yimaadaan say uga hor tagaan waxaan rabaa caawa marka inaan idiin sheego gole marjac mudulood oo uu hogaaminayo madaxweyne cali mahdi maxamed ayaa magaalada muqdisho looga dhawaaqay golahaasi waa golaha badbaadada ummadda soomaaliyeed wuxuu badbaadin doonaa biidnillaahi jalla wacalaa oo ka badbaadin doonaa hoogga iyo ba'a iyo afka libaax ay soomaali ku dhacday khaasatan mas madaxa laga dilaaya magaalada muqdisho warka waa badan yahay axmed waan iska soo dhiibi walaalow haddaan dhaho waan bilaaba caawa waagaa igu baryahay waan iska soo dhiibi marka aad u mahadsan tahay waxaa qad ku jira walaal kale fadlan adigoo maaragta magacaada ku bilaabaya waad maqlaysay dooda engineer Koblow waxaa sidoo kale nala jooga Diini Cumar oo isaguna nin reer UK ah aqoonyahan reer UK ah haddana howlo shaqo u jooga Ankara ama Istanbul soo dhawow ra'yigaada waxaad ka qabto waxyaabaha socda hello adeer ma maqashaa ku soco waa ku maqlaa adeer waa ku maqlaa ra'yigaada ka dhiibo waad maqlaysay dooda ku saabsan dhismaha hirshabeelle iyo dhibaatooyinka jira horta aniga magacayga waa cameraman cabdullaahi afri waay horta waxaan walaal axmedow waxaa la yidhi adduunyada alfitnatu ashaddu min alqatl fitnada dilka waa ka weyn tahay waa sax calaa kulli xaal dadka ahalka oo walaalaha is haysto waa hadda waa hawiye hawiye waxa waaye hadda abkoobay Koblow markuu ka hadlayay agaasimayaalaana haysto dad agaasimo laga dhigay maalintii cabdullaahi yuusuf ilaa hadda agaasimo ah oona la taaba karin بيريم هوية ملايين واي ستة قف ما مغلي جرتي واجي إسبرتي ولا شنت مشي حياشة ما مغلي جرتي ها حتى وعنا ستة مشي حياشة إن يكلي نولادان أنت
dhowrka milyan oo haween inay baha caawa bambiitoomika inay ku dhuftaan ay rabaan waa yeeli karaan laakiin ilaahay kama dhigin way second kablow abkoobeyga wuxuu yidhi nin afkaa waa looga soo baxay nin waa aragtay ninka la yidhaha cumar finish degdeg turkiya loogu qaaday ninkii xaaraanta badsado cudurkiis waa badsaha aniga waxaan leeyahay walaalaheena xawaalana waxaa dhisay ciise mudulood dad ahalaan nahay ciise mudulood onankana wuxuu noo yahay abkoobu noo yahay ma garatay haddii la yidhaaho madaxweyne abgaalaa loo rabaa kijawaad madaxweyne xawaalaa loo wadaa waxaan leeyahay mudulood khaasatan abgaal cali guudlaabe inuu ka fadhiista arrintan ayaan jeclahay alif ka wareere albaqra nin hadduu alif waxmaal ka wareere albaqra ma aqri karo ninka oo kursiga ilaahay dharatiya xasa ninka la yidhaaho xasan sheekh waxaa la siiyey meeshaas xawaale caasimadana mudulooda la siiyey fidnada gadaal ka soo riixay waa ninka liistada qoray ninka xasan kalweyna fahad yaatiin la yidhaaho ilaahay iska dhaaf magaciisa la sheeg waxa kale iska dhaaf afay waayahay aad iyo aadaan u gartay أحمد وحواي في النظر قبل واحد فرماجو إنه كل شيء كان يقول جو أوريجا أوريجا إن دورش اللي قلت إن في النظر صار له فلو ما تعتبر كنت باي وقتي أو دورش هذا بقول بريا كذبا وطلب صعب واي ولكن سوماليا ودين أنتم أيام والله أحمد من كذا هو وفاة يتيم يفرماجو مصلحة تجين ومدى فكل الجوار وحواي سيلوشي مدعوين حوالا له مدعوين بدوين أحكام له كوير كليل أول بيتا هناك وحكوين عربنا كرسي مدعوينات سوماليا أيان أبها النايماء وحنينا قبل اسمه هوي الجوغة waayahay aadaan u gartay waa kugu soo laaban doonaa waayahay qablow waxaad sheegtay in gruubkaas oo cali mahdi hogaaminayo ay jiraan gruub oo cali mahdi hogaaminayo soomaali badbaadin doona soomaali inta aan la gaarin ma isleedahay gruubka cali mahdi uu hogaaminayo ma badbaadin karaan hirshabelle ma ka badbaadin karaan dhibaatada uu ku socdo soomaaliya oo dhan simple jawaabtu meel dheer ma laga raadinayoba ha caawa aan kula hadlayo magaalada jowhar torreeyo la isu sitaa mashetic knives torreeyo haddaad arki jirto torreeyo 2 af leh mid 4 af leh iyo 3 af leh oo laga soo waariday caalamkao dhan ayaa la isu sitaa you name it qoryaha rasaasta iyo hubka la haysto xataa ma la raacinayo waa raacsan tahay waxaa halis loogu jiraa axmedow oo on the brink ah any minute ay xabadda qarxi karto ilaahay dulmiga waa xarimay meeshaan waxaa dhacay dulmi ihaano midda ugu weyna weliba reer jowhar waxay caawa aaminsan yihiin fidnadu af la qabtay leedahe daba la qabto male haddaanan hadda la qaban berritoole ma la isu keeni kara xataa soomaali imbigati malab icaanay noqonaysaa imbigati waayahay waa ku soo laaban doonaa daawadayaal barnaamijka waxaad kala soo xiriiri kartaan telefoonka shaashadda ku qoran oo aad ra'yigiina uga dhiiban kartaan sidoo kale ina barnaamijka fadlan ka codsanaya inaad baahisaan ama aad follow garaysaan Gorgata TV waayahay diini dhammaantiinba ayaan su-aashaan idin dhex dhigayaa sidee looga baaqsan karaa ilaa badbaadadu qoray maaha xabadna maaha in la istilana maaha sidee looga baaqsan karaa inaan meeshaas ku daadan waxa maslaxadda ummaddu ku jirtana lagu heli karaa to my opinion waxaa looga badbaadi karaa arrintan waa only two points one inuu hawiyo midoobo oo si cad uga soo horjeesto ilaan problemku way identify already walaalahayna way la qaban arrintaas waa fila soomaaliya waa issue meeshu ka jiro
marka inaan united noqono oo aan kasoo horjeesano oo one voice aan ku hadalno oo aan dhahno we don't want to accept it ma rabno waxaanaa wadid midkan masaakiinka ama aad rabtid inaad abuse garaysid aad u ballan qaadaysid wax aan jirin iyo hawo ma shaqaynayso marka in united la noqdo waa one option the other option marka which hadda aan ka shaqaynayno waxaa waaye in la helo waaye next generation of hawiye oo wax bartay oo youth ah oo different skill kale lah nimankan waa annagoo kale we can challenge them in many ways hadday noqoto fundraising we can raise fund hadday noqoto contacts we can look for a contact hadday noqoto macnaha engaging for international communities oo waa samayn karnaa in la helo marka dhalinyaro yaryar ee waqtigooda geliya 3 hours 4 hours a day oo la challenge garay nimankan sababtoo ah nimankan waxay weak points kana heleen which is dad masaakiin ah ama aan wax fahansanayn ama rabaan xukun hawo laga iibinayo waxa leeyahay waxaan ka dhigan wasiir waxaan ka dhigaa xildhibaan waxaan ka dhigaa lacagtaan ku siina warqadan iyo saxiix ama waxaan samee shaqada intaan ku qabo marka dadkeena wax fahansan inay u istaagaan waa ummadeena saasa looga bixin karaa waayahay dhibaatadan taagan sidee looga bixi karaa looga badbaadi karaa iyadoon wax dhiba aanu meesha ka bixin dadkuna waxay rabaan loogu heli karaa oo maamul sax ah oo dad sanadka bixi kara dadka oo dhibaatada ay ku jiraan ka saari kara loogu dooran karaa yay ku socotaa su-aashaa tiri axmedow caaqil hadduuna maqlayo okay waxaad moodaa caaqil inuusan maqlaynin injineer coblow ku soco axmed waa run ninkan walaalkay hadda hadlay labada option keenay waa sax laakiin already option waxaa jiraba miiska lasoo saaraba oo hadda la practice garaynayo oo challengegaas uu bilowdayba kaasoo ah odayaasha dhaqanka ilaa wuxuu ah 4.5 waxaana la yidhi waxay based on ku tahay oo liid garaynayo odayaasha dhaqanka mudulood especially abgaal waxay iska diideen team cali mahdi marjiciisa in ninka kumeelgaarka ah ee 9 years 10 years kumeelgaarka meesha isaga haystay ee la arkay waxa uu ku sifoobay iyo waxa uu ku dhaqmay iyo waxa ka soo baxay iyo sida uu dhaqmaayo iyo resultigeedii loona sheegay la yidhi 1 2 3 4 5 6 7 8 waa clear haddaa taa ummadda nebi maxamed ummaddan ka hor leexo 4 months uu soo haystay way gedgediyeen waxay yidhahdeen once aan ku dhawaaqno 75 xubnood ee mudulood u qaabishan dhismaha banaadir state macnaheedu waxa waay dheen saldanadii afareena ka baxday marka waa diideen oo waxay yidhahdeen annaga marna kama tanaasulayno meeshan waana laga jiidaya meydkeena unbaa hantoosheena laga bixinaya maalin cad ayay overwhelmingly shacabka mudulood ee magaalada muqdisho degan 4000 people kasoo horjeedka habar khadiijo ama xarunta sirdoonka soomaaliya royal policy waxay si overwhelmingly ah ugu codeeyeen nin dhalinyaro ah oo goobjoog u ah waxa ka dhacay dhaqan ahaan iyo dhalasho ahaan iyo abtirsi ahaanna xaq uu u leeyahay inuu noqdo ninka dhaxalka boqortooyadaas imaamnimada iska leh halkaasoo ka soo bilaaban doonto sixidda khaladaadka waaweyn ee masiiriga lagu gaarayay ee nagu habsaday marka already the challenge is on walaalkayga igu horreeyo intaasaan kuu sheegaya waa yahay caaqil ma nala socotaa ha si fiican waayo haddaadna maqlayso sidee maaragtay dhibaato looga bixi karaa iyadoon wax dhibaato ah u dhicin dadkana qof ay rabaan loo soo dooro karaa waxaan ognahay hadda in beelaha meesha dhexe markii laga hadlaayo hirshabeelle khaasatan jowhar inay doorteen imaam cusub laakiin hadda imaamkii hore ninkii kusimaha ahaa iyo dhaqankii hore ay hadda joogaan hirshabeelle ayagu dowladda soo xulayaan qoblawna wuxuu hore noogu sheegay gruubka cali mahdi inay wax walba xallin doonaan markasoo already uma jeedin in tijaaba ku socoto oo gruubkaas already hawshii loo igmaday oo ku feelgaroobayaan sodhow caaqil raallahow axmed hadalka aan kuu soxo ma ahan soo xulayaan waa enclosed list envelope warqad ku dhex jirto oo sharooto kor looga dhejiyey stablarna lagu dhejiyey
oo hadhow xagga lagu furaayo oo la akhrinayo way waxa loo dhiibay raallah caaga loogu soco hore u gal bismillahi raxmaani raxiim horta waxa waaye ilaahay tawfiiqdana waafajiyo amiin dadkeenana waxay u baahan yihiin badbaado gacantii badbaadi lahayd ilaahay gacanta u galsho horta kow markaan ka galno arrinta dhaqanka ah arrin dhaqan ah lama taaban karo dhaqan waa dhaqan waktigii laiskaga yimaadana waa laga hadli karaa arrinkaasna waxaan leenahay in lagu fududaado maahan dhaqan hotel sida musharax xildhibaan laguma doorto dhaqan meeluu leeyahay lagu doorto oo lagu caleemo saaro adeer cali iyo wixii arrintaasi galayne waa ku fududaadeen laakiinse waa mas-uul maya caaqil ay gana challenge ergas caaqil ay gana challenge ergas kan hadda jooga ku meel gaarka حتى عفر كنا قفوا هوتيل سقطت من مايسة مقعبا وعلى الربع بين لقوع العلي الرن ما نقطع عاقل اكسكيوز مي بين لقوع العلي عاقل بين لقوع العلي عاقل رلاو بين لقوع العلي عاقل رلاو بين لقوع العلي رن ما نقطه منك هاد الجو عفر كن اسكدا في عفر هبرود استغميما لم فينيش وهو هاي وبقاتك إمام محمود وهاي ما دام وبقاتك هاي كميلجار نقوها يلري ما دام كميلجار نقوها يلري atrocity aragtay ayuu aabay hooyo yahay ha noqonin ninkii daawadiisii diidanaa ee lahaa markii slavery inta xariga laga furay roobka u yimid roobka dalada isaga dhigay ee aan weligiis roob arag ee qoraxda ku dhacaysa raallahu hore u gal aan dhamaysto waxaa ka codsana ina qof walba jaansan siiyo maya horta aan ismaqalna horta barnaamijka u kaadi waa inuu sii doono horta u kaadiya barnaamijka ii kaadi horta ii kaadi barnaamijka under control inuu noqdaan rabaa isugu aday axmed maaha sidaa u qeybanaysa horta ima aada fahmi qofka qaladka galayna caaqil qalad oo galooya waa in qaladka oo bulshada oo ka dhiibaa horta ii kaadi aniga barnaamijkaygu kuma saabsana barnaamijkaanuna kuma saabsana dhaqan wuxuu ku saabsanaa arrimaha xulista iyo arrimaha ka socda hirshabeelle wuxuu ahaa barnaamij siyaasi ah anigu ma rabo inaan dhex galo beesha mudulood iyay duubatay iyo aanay duubanin marka waxaan rabnaa barnaamijka inaan dhinac kale loo rogin barnaamijka in sida uu yahay aan u aadno waxaan ka aadaynaa natiijada ma rabno annagu inaan tv-ga ku dagaalno oo hadda aan u socono ujeedda ma rabno marka aan u soo noqono hirshabeelle maslaxadeeda sidee lagu gaari karaa meel noo dhiga caaqilka imaamka iyo xagga noo dhiga sidee maslaxadda hirshabeelle lagu gaari karaa horta axmuudey su-aasha qof walba waxaa la rabaa xilligiisa inuu qaato oo laga warsugo qof kastana inuu wax dhegaysan karo markuu dhegaystana jawaab ka dhiibi karo farmaajo waa cadowgeena waa nacam farmaajo waa dhibaatan lagu haya nacam dowladdan iyo nimanka la shaqaysanaya niman xun oo maxaysate ah oo dadkooda dadka ugu xun laga culo waaye waa nacam laakiinse hadalka qofka in la sugo ilaa wixiisa ka dhamaysanayo fikirkana waa lagu kala duwanaan karaa aniga waxaan taaganahay walaalkii kablowna inaan ku xadgudbo ma jecli waana ilaa walaalkay laakiin waxaan leeyahay kablow iyo aniga imaam nagama dhexeeyo kablow ujeejeen waayo ugaaskiisa ha ka hadlo imaamkana anuu imaam ii yahay anaa xuquuq u leh inaan ka hadli karo waxaan leeyahay marka gablow shaqo kuma lihin meeshaan xil kuma laha arrintaana waxay u taallaa abgaal cusmaanna imaamkooda ayaga ka hadli karo caaqil raalli ahaw waxaan ka hadlaynaa waa hirshabeelle haddii ay noqoto hirshabeelle marka hadda usoo jeesana hirshabeelle marka aad rabtaan imaamnimo inaad ka hadashaan laakiin hadda aan ka hadalno maya waxaan diidayaa qof aanan wax ku lahayn inuu dhanko waxaan diidaa oo runta laga cararo ayay ka soco waay shaqo kuma lihid ka joog meeshaas imaam dada iskale oo ka hadlayo dhaqanne shaqo kuma lihin wixii xal ah laakiin waxaan leenahay cali mahdi wuu ku fududaado hirshabeelle marka hirshabeelle waxa warqad lagu wado iyo wax xal laga wado hirshabeelle muhiimadeeda waxay tahay dad maskax fiyow oo isku caqli ah oo isku ur ah inay ataagaan dadkan shuftada ah ee soo heshiiyey waxaa looga hortegi karaa in isku duubnimo la muujiyo cid kasto
oo wax raadinayso haddii aynan awood isku duuban aynan haysanin xal ma keeni karto waxaa xal ku keeni karnaa annaga Fahad Yaasiin oo qadar lacagteeda wado dadkeenna ma ku gadan karo waa inaan badbaadinaa oon u kacnaa caqli cilmi inta leh oo de haddaan awoodi weyna cid kasto oo ka koraysa mudulood xaq ayay u leedahay awoodeeda inay wax naga siiso saa iskaga daafacno qoomkan aan xishoonaynin oo qadar hor kacayso oo keenna ugu xun hogaaminayo ay wataan inay madaxweyne ka dhigaan waxayna rabaan inay madaxweyne ka dhigtaan ay samaystaan shaqooda marka waxaan leenahay see uga hortegi karnaa waa arrin wanaagsan inaad ka midaysan tihiin in Hirshabelle arrimaheeda loo daayo waxay ku heshiiyeen inaan wax laga bedelin waa point aad u wanaagsan waana arrin aan maaragtay aan aad u fogaadinayo abay isla arrintaas wixii aad ka oran lahayd adigoo soo gaabinaya sidee lagu heli karaa maslaxad dad ka maslaxad u jirto in la soo doodo أحمد أرتكابك محلي راو مع نيفو سيا وحسيوسا على كل حال مايا أنا مايا سيدا ربطة وهذا أنا كمطنا هيو سو قابي وحن كوضا هذا الكوبوينت هيش لكن معها هبلنا هات يريس هبلنا بطل معها وصار أول يوم ninkii odaga oo hadda hadlayna walaalkay ani hortiis ma naqaano abkoobay oo ka furo oo dadkii u aqaana ala kulli qaladkii lagu dhaxo hortiideed ma fiicno hadda boorna wax yar example of shirkii ku dambeeyay farmaajo la doonayay oo diga fadhiga oo ka qaatay hadda shirkii shariif ani waa goobjooga ay filna ka duubay ala kulli xaal dadkaas mididaas caloosha ugu tagtay maanta inay mar labaad nagu tagtaan marib ala arintii joohar waxaa joogo hadda inta loo fiiqooyo ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo odageena cabdimahdi ay jiro waa in xawaale iyo mudulood afgaal badhahay hadda afgaal le hadda iliseenta arrintan in meel la saaro arrintan oo Fahad Yaasiin iyo wato ninka la yidhaha farmaajo fidnada ee wadaan gurigood ciyubkay ku naqon doontaa cali gullaabe ha ka leexdo kursigan hawaale haloo arrintaa laga socdo shirkan inuu dib u dhaco waa farmaajo iyo ninka la yidhaha allahuma salli cala sayyidina iyo Fahad Yaasiin maalinba waqtiyaa lagu daroya meeshan waxaa ku jiro caqli oo dadkan hawiye oo fahmaynin shirkan oyinka hawiye waxay leeyihin waqtigii sabe فبرر على نجاتي بحكتهم ده يوم كان اللي إيشان وحواي دب أيا صعدو دب كان وحواي من الحروشي تيرتونا أنا رد جبنا علي لي إنت قرنا ولا يا اللي حبا كذا ما فهمتي على كل حال جوهر وعندك حسن ودوجوك حمر وهو تجي الوقت كانوا ويا الهضم علي ما دي أودي واجوها حالس أركو عريتان توفيق هلا وجارو إيش عريتان على دميو كل حوالي هالوجاي ويا أدي أرض ما سنتها وحنت ليا إن أنت كلمت هاي ويا أنا كنت صدا 1 minute أوكي قلت وكوّد من يستنى إن أرنتان كودك دكتور دولة وكوّد من يستنى إن حوالي اللود كرسي نيمان كان نيمان هذا الحكومة قلما نيمان كان نيمان جانجس ستايل استعماله وفرماجي Fahad Yaasiin marka odayaasha dhaqanka ama ugaasiyada inaan taladooda u dayno annagana aan ciidan bildi garayno waa muhuraysa dagaal tan soon or later dagaal muhuraysa because Fahad Yaasiin iyo farmaajo they are not going anywhere that's their plan marka 91 kii dib ugu noqonaynaa haddii dagaal inaan bilaabno waayahay su'aasha aan haddana raba inaan dhammaantiin idin dhex diro dadka waxa la yiraahdaa ninka la yiraaho qaadibti imaam maxamuud allah u naxariisto jawhar yeerka daahirna waxa waaye imaamka rasmiga ah ilaahay hadda laga baqo shirkii waxaa joogay beledweyne ugaas xasan cali masaarkiis ugaas daahira joog waxaa diiday ugaaskan hadda oo fidnada wado oo jawhar jiro ma aqoonsano yiri ugaas xasan ugaas roobli
أنا فيلم كتبت واي أنا جوار جري داير وانا سواي داير إيمان لواي حتى لو وصلت الله ليش اللي يراه البروبلم كي يبقى هذا خبير عطي أبو إجر هلا أبو إجر هلا برنامج سونا صاري ترجع الله برنامج كذا كان إن كبر له سبب برنامج سونا قصة هذا ما سنت نقدر برنامج كاي وكل هذا علينا وياه سؤال شد إذا ما نحن جاي واحد هاي عم تلاقي إن نقطهم في سؤال شد برنامج سوق قبل لي وحل هذا كوفيد 19 عذر كان هذا أدين كاري لكن كوفيد 60 كوفيد 19 عذر لي هذا والسياسة ده أوضعي بيش هوية هي عقلك أنت باكرة سيدا مركا عذر كذبوا دوين كرا كان دوين يسير الرادين طبعا دولة أنت تقول ليس بونته أقوياء كباتين بيش كزوجي سيدا عذر كذبوا دوين كرا عقلك هي سياسة ده بيش كذا قبله بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم ما كان هذا دقيقة يقول مرسل ملينا وحن هذا وحوي كوفيد كأما هوية بانديميك سياسة كذا دعي خير من الله سكير تطبقنا كهذلي وحنا قدام بيجي أو عن آد argumentigiisa aan ugu riyaaqay una aqbalay ambassador Cabdullaahi Sanbalolshe ma ahan pandemic awiyo dhanna ma ku dhicin waa iska simple waa just nimankan oo saldanada laga tuuro ayuu horta uu ku egyahay kooxdan saldanada haysato ee farmaajo iyo tiimkiisa ah waxay isticmaaleen oo ay kireysteen niman corporate ah oo adduunyada jooga oo securitas oo kala ah oo ay ka dhigteen in ay u soo dhageeyaan xataa wixii khatar ah oo ayaga ku imaan kara markay option qaadanayaan xoogaa yar investment ana waa u heleen dabcan ilaahay baa awood leh awoodda kaliya ee maanta wax bedeli karto wax diidi karto waxna ogolaan karto waa awoodda hawiye marka way ku khasbanayeen ayaga inay dismantle ku sameeyaan awooddan hawiye oo burburiyaan oo ay sida day aan ku sheegay mid walba meeshiisa ugu tagaan qaarna waxay jecel yihiin u sheegaan midba A B ay ku maraan B E C na D ku maraan ilaa iyo adiga dibiga cad iyo dibiga madow iyo dibiga guduudan waxaan aaminsanahay mar haddii ayaga meesha laga leexiyo way hagaagaysaa awoodii ama siyaasadii hawiye midka ahayd injineer Koblo inaadan su'aashii aadan keenin jawaabteed sababta dhibaatada jirta waa ognahay sharaxaad waxaan u baahanahay waa inaan jawaabti helno dawadii inaan halka waa cudurkii waan ognahay 60 sano jirana waa dawadii sidaan ku heli karnaa waa ujeedada marka waxaan hadda siinayaa haddii ilaahay diini cumar bal asna inuu ku diro ra'yi fiiri axmedow fiiri jawaabtu waa sahal waxaa jiray golihii sare kacaankoo kale raallaha qofaa loo gudbiyey su-aashaan u malaynaa golihii sare kacaanka 2 nin oo hawiye ah oo isla cashayn karta ma jirin midba midka kale uu ka baqaay oo wuxuu islaanimo hadda inta la cashaysto aad tiraahdo wax yar hadalkaaga tago armu afweyne u sheega oo kaaga hormaraa dabcan ninkan styles fara badan oo uu wato oo la taliyaashiisuna ay u badan yihiin dadkii maxamed siyaad barre remnantskiisa ama raadigiisa ayay u badan yihiin tii ma dhicin laakiin taas waa lagu guulaysto hawiye waa isu yimaadaan waana iswaraystaa warna waa kala qaataa laakiin koox corporate oo hawiye ah waa soo bixin oo qabiil bul ku jira saan ku sheegay daawaduna sii wad soo wad waa nimankan oo saldanada laga tuuro more saldanada nimankan laga tuuro it's easier because nimankan waa cudurkayga noo sheegeen waxa sharaysanayso khayr ku ah jiray dabcan waa dhibsanay laakiin waxbayna bareen baan ku camal falaynaa taala walaalka loo dhigo saasha okay waa maasantahay no problem cudurka covid fahada la dhahaa covid-19 waa covid fahad waa corona fahada socdo wax hadda soo bilowdana ma this isaga he has different team oo sirdoona asiga gooni ugu shaqeeyo research sameeyo oo maanta hadduu rabo inuu qabiil aada research looga soo sameeya marka this guy and his team covid fahadka حتى they planning haddii farmaajo option si walaalka u sheegay haddii farmaajo loo shaqeeyo xataa madaxweynaha imaan kara xataa probability-gooda influence ku leh team kala jiro oo raggaas la sii shaqeynayo marka unless
baasha sida ayaga gameka u dheelayaan aan loo dheelin ma ahana lagama guulaysan karo waa siyaasadii maafiyada camal waaye marka sidoodii oo kale inaan u dheelino waayo banoniga waayahay caaqil sidee looga bixi karaa sida su-aashaas ururkan la yidhaahdaa see looga bixi karaa ilaahay aan laga dulqaado horta kuwan ma naxan ma xishoodaan ixtiraam ma laha ilaahay waxaa ka toogayna ilaahay naga dulqaado dhibkan ugu hayaan ilaahayna og yahay anaga ogna taniya marka ilaahay tuugto waxaa la rabaa inaad aad la imaado option kaleeto oo wax iskaga daafici karto dadkan oo soo heshiiyey oo lacagta la ordayo jaaniskooda ugu badan waxay tahay dadka wax garto inay iska hor keenaan cid walba oo Soomaali ah dadkeeda wax garto waa iska hor keenaan waxay iska hor keenaan leh shakhsi dhaqaale lagu gadan karo oo mustaqbalkii ayatiinka ilmihiisa aan ka fikirin marka la abaarayo ninkaasi cidda aad tahay wuu yahay waxa aad tahayna wuu yahay waxaa la rabaa marka bulsho ku xiranaa jirto si caqliyeysan oo looga reebi karo oo farta loogu fiiqi karo haddii aanan la helin marka oo mar walba dadka isku hadafka dhow looga keeno waa dhacay sidaan filayo marka qadka waxaa ku jira nadiifo cali nadiif degeysanaysay telefoon ay soo galay hadda waa la maqlaa go ahead dadka isleh marka oo wax wada qabsan karo oo ayatiinka shacbiga ka bixin karo ilaa hadda waxaa noo muuqato daraad waxaan ku dagaalamaynay galmudug ilaahay soo ka dhigi rabay way noqotay maanta waxaan hor yaal Hirshabeelle oo labadii cid oo dadka isku xigtay oo awood lagu xisaabtamaya ah sida la iskaga horkeeni lahaa maxaa la iskaga horkeenayaa in la yiraahdo dastuuri ma ahan in madaxweyne hebel laga dhigo maxaa uga bixi karnaa inaan la horkacaan dadkeena caqliga leh oo maskaxda leh oo aan xabadna ka cabsoonin oo ka hortag toos ah oo caqliyeysan u tagnaa haddaan marka aan mar walba aan mas'uuliyadda u dhiibno micnaheeda qof adiga dhaliilsanahay oo adiga aan rabto oo qof kale hebel dhaliilsay oo hebel rabo micnaha waxaan u baahannahay samata bixin waji cusub nagu horkaco nagu hogaansho oonan ka imaanin cirka oo dadkan ku dhex jiro oo isbiimeeyo oo badbaadiyo Hirshabeelle badbaadi u baahan tahay cali mahdi aan badbaadi karin cali faarax aan badbaadi karin cali jaamaca badbaadi karin waxaa badbaadi karo beesha mudulood oo hadaf caam ah oo ku tucaystaan oo iskaga hor imaan karaan ay wax ku qaban karaan ay ku ataagaan haddii laakiin lagu dayaco sida ay hadda tahay nin walba gurigiisa joogaa berrina wixii laga soo saaro aan lagu dhaqmaa waxaana la leeyahay sida Axmed Madoobe 4 tana loo dhaafo ayagoo beelihii Soomaaliyeed oo dagaal dhex yaalo marka waxaan u baahannahay hadal ayadoo waxaan ku ekaanin hadaf cad iyo juhdi cad inaan la gelino saa u badbaadin Hirshabeelle waaya waxaan ku badbaadi karnaa dadkan inaan ka qabanno waaya aad iyo aad u mahadsan tahay hadda waxaa ku jirta qadka nadiifo cali oo rabta ra'yigeeda inay ka dhiibato nadiifo ku soco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ علي هدي يا أيام كل سلام يا برنامج كقروح بدن أديكو رير شبيلة يا مسؤولين تكلا سياسيين تكلا أي رير شبيلة سيدا ما شاء الله وناكسن أدوات ضدين طول ما يقول له هاي رير شبيلة وحلا استاجي أما أي استاجي فاد ياسين هي فرماج إنه بريان taasoo micnaheedu ay tahay in xildhibaano ay ka helaan ayagoo codka siiya ayay shacabkaasoo dhan u burburinayaan ha noqoto mudulood iyo xawaadle in layska hor keeno taasna waa midda aad diidan tihiin ood uga soo horjeedtiin oo aad shirtaan aad u qabatay waa kaaga mahad celinayaa haliyey u istaagan mar walba ayaad la tahay shacabka lagu badbaadin lahaa Axmed Cali Hudey walaalaha kalena way ku mahadceliyeen walba fikirka u dhiibtay anigu waxaan leeyahay in Hirshabeelle ay u istaagaan walaalaha daga ay ugu horeeyaan beelweynta mudulood ay gacan bira ku qabtaan maxay ahayd Hirshabeelle iyo walaalaha xawaadle ama beesha xawaadle ay ayagu si gaar ah u wada kulmaan u fariistaan ay ka tashigooda ayagay u taalaa
maanta dadka midyaal la isugu soo keenayo waa mudulood iyo xawaadle mudulood iyo xawaadle markaan leeyahay walaalihii kale ku jira oo meesha wada dega ee kasoo jeeda beesha hawiye ayaa meesha wada dega gaar ahaan mudulood iyo xawaadle la isku diro hayaa waxa isku dirayana waa kila Soomaaliya marka waxaan rajaynaa gudoomiyaha beesha mudulood mudane cali maadi madaxweynihii hore inuu istaago ugaaska xawaadle inuu istaago in ay isu tagaan in ay aayooda ka tashadaan ay haddii xataa ay dib u dhacaysa xataa in dowladda ay maad doonto madaxweynaha hirshabeelle la doorto qasab ma aha haddii madaxweyne la doorto waxaa sii joogi kara madaxweyne waare hawsha sii wadaa iyo madaxweyne ku-xigeen cali guudlaawe hawshaa sii wadaan ma ahan in xildhibaano qasaba laga keeno oo codka siiya ayaga ma fahamtay waxaan rajaynayaa dadaalkeena ku guulaysta reer hirshabeelle yaan leedin dhibaato yaa leedin soo fiirsanaya iska dhiciya dowlad ma aha waxaan waa dowlad dulmi wadata ciidamada leedin keenayana iska bixiya waa inay odayaasha nabadoonnada imaanada malaaqyada waa inay wada istaagaan ugaasyada waa in la wada istaago waana ku maasan tahay gabagabada yaad maraysaan dhammaan waa islaamayaa adigoo isku duuban iyo shacabka daawana aad iyo aad u maasan tahay nadiif cali axmedow hal daqiiqan waxaan rabaa inaan ku daro si pragmatic ah 1 minute haddaa isiin karto haddii aad degdegayso oon ku dhaafaya waayahay ku soco walaalo 1 minute waxaan rabaa firi nimankan saldanaday haystaan lacagtii hal daqiiqo oo kaloosina insha allah okay nimankan firi axmed ma ka geli karaa ha ku soco ra'yigaada ka dhiiba haddii ilaahay hadda diyaar waayo sooma waa live aa tahay ku soco okay waadi fahma dhammaantiin inta meesha wada fadhisa gablow iyo ragga kaloo dhan aan magacyadooda garanayn runtii dad qurux badan ayaa halkaa ka jirta runtii waana wax lagu farxo aad baan uga xumaana haddaan nahay jaalidihii dibadda dadkaas hadda la sheegaya ku abtirsadaa in mataqaanaa xawaadle iyo abkal ulaal isugu dhiibo waxaa la soo baabiyey meel la yidhaahdo koonfur waxaa la soo baabiyey meesha la yidhaahdo galmudug haddana waxay ujeedadu ay maraysaa niman annagu rabnaa oo maqaasaar ayaan keensanaynaa marka dadka waxaan leeyahay arrintaas horta waxa weye waa arrin khatar ah waxa wax lagu baabi'inayana waa lacagtii dadka masaakiinta hawiye laga qaaday ee magaalada muqdisho ma aha lacag farmaajo la yimid iyo lacagtii tuugada ahayd ee qadar ufaad yaasin ka keen marka dadku waa inay ogaadaan runtii kablow ninka la yidhaha waa nin aad wax badan uga og kasoo shaqeeya soomaaliya walaalkay waan ammaanayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in dadkaaga aad baraabiso oo waxaani waxa soo socda laakiin in the futureka dheer waa in laga fikiraa dhibkan maxaa noo keenay dhibkan waxaa noo keenay kursigii annagu aan isku haysanay ee adkiisaan isku diidnay gaar ahaan abgaal markii dambe hoostiisa yimid ee abgaal oo isku diideen barintiga waa in loo tagaa marka sidayna taasoo kale mar dambe u dhicin waa in dadku ay ka fikiraan in waxaa shurtooda la cunaya ay yihiin waxa la dilaya ay yihiin ayaga dadka hawiye waxa mataqaana madax loo noqonaya ayaga ay yihiin ninkaanu puntlandna madax uma aha jubbalandna madax uma aha laakiin qabiil ahaan wuxuu u abtirsadaa waa nin daarooda raad yaasina waa nin etoobiya dega marka haddii loogisi aan noqonay oo aan noqono dadkii loo talinaya iyagu 3 nin oo fooryaana ay u talinayaan nin ka yimid mataqaana bafla ka yimid oo aan u dhalan gobolkan banaadir iyo dadkan hawiye iyo lacagtooda urunaya iyo nin kelinka shanaad ka yimid ee fahd yaasina maanta annagu noo talinayaan ee lacagtii argagixisada qadar noogu talinayaan annaguna aan noqonay dadkii mataqaanaa lacagta qaadanaya ama shaqaystayaasha ahayd ee salaan cali jeelle iyo geedi iyo ninkasoo lamida keligoodna maaha ma tilmaamayo laakiin geedigood oo dhan ayaa noocaas qorqor ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan ama lafta karen ha noqdaan laakiin wax inay ka fikiraan si dadkaasoo kale aan ula dagaalami lahayn ee aan xarig qoorta u gelinayn sida isqaanfisooyin oo kale si ay ugu quus qataan kuwa dambe soo socda oo doonaya inay shaqeeyaan waxay iyagu leeyihiin gurigiisii uu raba inuu lacag ka qaato taas ayaan ku gaari karnaa marka dadka hirshabeellow iyo dadka mataqaanaa jowar iyo mataqaanaa ergal iyo xawaallo jambal baa loo tuurayaa jambalkaasna ha ka faa'iidaystaan
mataqaanaa isal meesha iyo basha waxaan leeyahay dadka haweenka dadka wax kala kacow dadka mataqaana loo tashanaayo oo hadda loo soo socdo madaxweyne lagu noqdana waa beesha hawiye weeyaan maaha beesha daaromaha beesha tireemaha beesha isaaqnamaha marka qof walba waxaa lagu loolamaya xeeran salkeeda ay tahay waa lacagta hawiye waxa la tukunaayo hadda laga sheegayo waxay tahay bankeedii hawiye waxaa la rabaa in mataqaana xawaaladii hawiye marka dadku waa inay ka fikiraan sidii jir adag lagu dhisay wadan wax kaga badbaadinay haddii kabayana noqon mataqaanaa dadkii mataqaanaa waxooda la cunaya sana caynay marka waxaan kusoo gabagabayna axmed wadani walaalkii aad ka maasan tahay fikirkan aa wato barnaamijkan aa wato tiifrigan aa wato adiga iyo dhammaan inta ka qayb qaadanaysa oo kula hadlayo iyo mataqaanaa ku ammaanayo aad baad umahadsantay walaalayaal aad baa umahadsantay thank you aad baad u mahadsan tahay inaa yahay waxaan rabaa haddii ilaahay guud ahaan waxaan isfahamsanahay isla garanay inaan heshiiskii la gaaray inaan waxba laga bedelin oo hirshabeelle lagu dhisay dabcan waxaan aaminsanahay inuu arrinkaasi gubay dadkuna ay wada fahmeen hadday tahay daawadayaasha hadday tahay ka qaybgalayaasha intaba inuu ra'yigaas gudbaya waxaan rabaa oo kale anoo idin sii doona qof walbaba dad closing ah waxaad la socotiin hadda kahor inay dhacday in laga gudbiyey propagando shirkadii barakad oo la xiray intaasoo sanana ay xirnay kabacdina disaxay haddana waxaa bilaabatay haddana in la yidhaahdo hormuud argagaxis shirkadaha kalena ma noqdaan in lagu eedeeyo marka aqoon-yahaniintii maadaama aad tihiin arrintaas iga aad ka qabtaan iyo daqiiqad ugu dhaqi lahaydeen barnaamijka aan ka hadlaynay adinkoo israacsanaya waxaan maaragtay ku horumarinayaa ilaa idmo diina cumar soo dhawoodin diina ma maqashaa sorry su-aasha ma waxaa bakaas qadka kaleer ahayn su-aasha waxaa waaye soo maaha hormuud ma argagixisada igu soo celi if you don't mind waa ka dhacayaba dino waxaa ahayd su-aasha laba arrimood isku dhex jirtay ahayd waa hirshabeelle iyo hormuud haddaad imaqashaan nin walba waxaa sii jirta dadii gabagabada ahaa haddii ilaahay idmo arrimihii hirshabeelle iyo weerarka mar labaad lagu qaaday hormuud oo markii hore barakaad hormuud lagu qaadaka been abuuran laga gudbay taasoo keenay in la xiro sanado ka bacdi baaritaan ku socdana mataqaanaa lagu waayay dembigii lagu xiray iyadoo arrintaas siyaasiyiin soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed ay ka dambeeyeen haddana sidoo kale ay bilaabatay hormuud weerarkaas oo lagu qaado iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin inay kaalin mugli ugu jirto ummadda soomaaliyeed malaayiin soomaaliyeed iyo boqolaal kun oo soomaaliyeed ay ku xiran yihiin hantina kuleeyihiin kuna nool yihiin wixii aad ka dhihi lahaydeen iyo gabagabadii shirkad hirshabeelle iyadana haddii ilaahay markii baaqa u jiri lahaydeen soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa diina cumar waa mahadsan tahay brother laba su-aal waa kala qaadaa hirshabeelle say ku socoto haddii ay ku socoto waa dagaal muhurto waa dagaalamaynaa tan hormuud dagaalkaa noocyo badan dhaqaalaha oo laga xayiro propaganda lagu kiciyo familkoo laga hor keeno asxaabtaadoo been loo sheego dagaalkaa noocyo badan marka waa business war waaye marka waxay u baahan tahay more research laga sameeyo si loo fahmo problemka ama cidda abuurta arrintan marka hormuud waxay u baahan tahay inay team u allocate garayso find out real issue ama propagandada la sameynayo dan markaa solutionka wuxuu ku dhex jiraa su-aasha marka la fahmo waayahay caaqil بسم الله الرحمن الرحيم
hadde waxaan ka hadlayno waxay tahay qofka aan jiritaankaaga rabin meel walba oo ka maraba waxbuu keenaya hormuud waa awoodda dalka waxaana iskale dadaan ognahay oo annaga naga tirsan sidii loo ciribtiri lahaa qayb ka mida dagaalka lagula jiro waaye in lagu ciribtiro maal iyo muruqba wax lagu heshiiye waaye waxaana ku heshiiyey cid kasto oo u aragto maslaxadooda in aad adiga haddaad meesha ka baxda ay wax noqonayaan waxaan leenahay marka hormuud sidoo sheegay waakay diini waa inay fiirisaa wax soo socdo ee isballaarisaa dadka ay wax ku tahay wax ka dhigtaa meediyaha ninka dadka kuugu xigaa lagu soo adeegsanaa ilaa waa aragtiin maalin walba daahir cali soo waa ka hadla hormuud waxaan leenahay indhaha ha furaano ama sidii barakaad dhacday marka ay dhacdo indhaha la furo hirshabelle waxaan leenahay nimankii ku fashilmay hirshabelle oo hal guri aana ka dhisin yaana lagu soo celin niman banaanka joogo oo orkacsi ah ayagana ah oo siyaasadii kale ku soo fashilmay yayna fidnaynin waxaan leenahay shacbiga hirshabelle oo maskaxda fiyow ah oo wejiga cusub ah aan badbaadino dadkeenna aan badbaadino annaga oonan isfiirinaynin annaga oonan ismaquuqaynin dad fashilmay oo soomaali hoggaankeeda ku fashilmay marlabaad yayna fashilin hirshabelle shacbiga xawaadle iyo beesha mudullood dad isdhalay oo walaalo ah isla dhashay weligood isla noolaa ayaan tihiin yaan liga dhex faa'iidaysanin xaaladda meesha ka socota waa fahmaysiin dadka wax garta la hadla lana heshiiya haddaan usoo jeeday bac ugaas khaliif ugaaskii weynaayaa tahay waxaa isku daydaa inaad jowhar timaadid horta waxaa isku daydaa inaad jowhar timaadid isku day lagama laha dadkaagaa joogo jowhar imaaw bal wixii gacanta kaa qabta arag annagana waa kaa ku daba soconnaa waana ku imaanaynaa laakiin haddaa adigana isku koobtay inaad balweyne joogto qayb ka mid ah waxaad ogaanaysaa wixii ka weynaaya dhumaayo waxaan leenahay cid kastoo caqliga leh shacbigooda gargaar ayuu u baahan yahay fatahaad waana dileen nimanka aad taqaaniin isbaara ku nool waaye ayagaa madax lagaaga dhigi rabaa wixii fashilmay mar rabno hana dhaafaano weji cusub u baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullah waayahay injineer coblo بسم الله الرحمن الرحيم labada arrimood horta waxaan ku hormarayaa arrinta hirshabelle waxa horta challenge wuxuu naga dhaxeeyaa niman ilaaha cuduma leh cudumadii haysta awoodii dalka ku rangareynay state house ka fadhiya lacagta haysta ciidanka haysta laakiin waxaysan haysan moralkii iyo waxaysan haysan shacabkii waxaan isleeyahay adduunyada waxaa dad ugu liitaa liiray runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana hawaayin qofka markuu ku dhaqmo dadka waa ugu liitaa hirshabelle odayaal dhaqmeedyo u badan rimay gacmeed u badan xaaraan kunaax u badan laalushqaatayaal fashilmay heerkan soo gaarsiiyey meeshaan maanta joognana gaarsiiyey ayaa loo diray san haddaay sheegana bashqad afka ka xirana loo dhiibay insha allah iyadana ma shaqayn doonto waan sheegaynaa waana sheegi doonaa hirshabelle cidda madaxweyne ka noqonaysa hadduu shabeelle yahay shabeelle markaan dhahay makanna hadduu yahay iyo hadduu gugundhaba yahay iyo hadduu gaal jecel yahay taxawaad leeyahay iyo hadduu mudullood yahay iyo hadduu cidduu doono dadka degaanka u yahay dadka degaankii u talla ayagaa ka wada hadlaayo ayagaa isku faraxsan ayagaa isla dhashay ayagaa isku degaan ah sida diina uu sheegay nin wax soo exploit gareeyo kilinka shanadkii hal degaan buqcad yar oo dhulka soomaalida xorta ah aan ka deganayn wax uu soo minguuriyo horta kama insha allah ma ka shaqayn doonaan waxaanan isleeyahay waa meesha uu tareenkooda uu ka burburi doono ayay tahay waana dadku ayagaaba iska diidi doonaba haddana waa ognaa caawa jowhar waxay ku hoyanayso iyo wax ay tahay taas waa hirshabelle waxaan u tegayaa su-aasha kaloo ahayd hormuud waa iska clear awoodda soomaaliya ugu tirada badanna waa hawiye dhaqaalaha ugu badanna waa ayaga haddii ay noqoto raw material iyo hanti guurta ah iyo hadday noqoto hanti guurta ahba dabcan challenge-gana lagu hayo wuu badan yahay
waa nooc walba shaati dowladaha lagu gasho mid federaal mid dowlad goboleed mid international community lagu soo isticmaalo adiga mar waliba waxaa tahay dad baad threat ku arkaba oo threat ah ku tahay waa lagula dagaalayaa waa laga hor imaanayaa waxaa la isku dayayaa unyamooda oo adiga madaxa maskaa laga dilaaye madaxa laga dilaaye si kasta oo madaxa lagaaga dili kara in lagaaga dilo insha allahu tacaala waxaan is leeyahay shakhsiyaad ba hadda la sheego hormuud ee cayaan iyo wax la dhaho waxaas wax weyn maaha hormuud waa niman wealthy ah waa niman awood u leh inay isdifaacaan sida aan qabo hormuud waxaa laga rabaa inay adduunyadan maanta digitalka ah ee aqoontan casriga ah ee rocket science-ka inay isticmaalaan inay hantidooda difaacdaan inay dee aanay noqon dad maaragtay like cash and carry ama hit and run ah u yimid kaliya inay dadkan wax ka urursadaan ay noqdaan niman u samaysan international relationshipska wax ku leh aqoonta maanta ah meesha ay joogto hormuud ay can afford inay adduunyada oo dhan lawyers ku yeeshaan insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay ayagoo ka faa'iidaysanaya shalay sidii loo isticmaalay xawaaladii waayarnimadeedii inay maanta ay kaga badbaadi karaan waxna laga qaadi doono insha allahu tacaala walaalkay caaqilan rabaa marka 1 minute inaan dhaho caqlow waxaad tiri udajeen baa tahay dhaqankan wuxuu u yaalahaa tiri abgaal waxbaa kaa khaldan caaqil aniga wax yar abti kaa qabanay raalli ahaw barnaamijkaas meel kale looga hadlayaa caqil may wax adaan kuu nasteexayn rabaa keliya aniga dhalasho ahaan adeerkii adeerkiisana layidhaahdaa waxaan rabaa keliya inaan ku baro dhalyadaan raba keliya inaan ku baro aysan dhalyada kaa khaldin in lagu filo waa aqaanaa allah ku caafiyo waxaasna hadda uma taagnin hirshabelle joogtaa هلا هذا هلا هذا برنامجك ونوضة ماضي اي عبسة برنامج waxaa iga qayb galaya Umar Diin Umar injineer Koblo caadil barnaamijkan oo kala duwan waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi Ingi diba la furo goran fogeyn
isla garan dadku kala go'iyo gabarha isku dila waxba kama geline gurbay rabta waanay heligayaan geesiyo murtidu garashayga soomalaay murtidu garashay